Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga kusoo dhawaada channelkayga meel kastoo adduunka dacaladiisa aad ka joogtaan. Channelka waa channelkiina, fadlan haddii ay ugu cusub tahay meesha gaduudan ee subscribe-ka taabo. Alamkana ha iloobin inaad furatid si aad ula socotid gambaleelka waxyaabihii hore kuu dhaafay waxyaabo dambe insha Allah. Sidaa iga barateen mar walba waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo waxyaabaha aan hagaagsanayo oo aan isleeyahay walaalaha way ka faa'iidi karaan. maasha Allah, maantana maxay idin wadaa walaashiin asxaabay, waxaan idin wadaa face mask, macnaha scrub wajiga u fiican nafaqo maasha Allah oo aan ka hagaajisanayna alaabo dabiici ah. waa u jeedina u maleynaa halkan waxaan ku haystaa sokor, halkaana waxaan ku haystaa baking soda, waa baking soda maasha Allah caagas yar ku jira. halkaana waxaan ku haystaa liin dhanaan, waa hal xabo liin dhanaan. halkaana waxaan ku haystaa weelkii aan ku hagaajisan lahayn insha Allah, aan ku habeesan lahayn. marka maxaan sameynaynaa asxaabe, hadduu ilaahay yiraahdo waxaan sameynayaa waa qaadada yar tan teaspoonka waaye insha Allah, 2 qaado oo sokora, 1 qaado baking soda ina ujeedina u maleynaya dhexdiisa maasha Allah. qaadada yar haafkeedan ka dhiganayna hadduu ilaahay yiraahdo. marka waxaan sameynaynaa insha Allah waa isku walaaqaysaa, saana isku walaaqaysaa baking soda iyo sokorta maasha Allah. sokorta waa skin whitening, waana scrub muxuu ahaay waxay ka qaadaysaa skinkii dhintay, macnaha madmadowga iyo wasaqda iyo ka qaadaysaa maasha Allah. liin dhanaantana sidoo kale waa skin whitening, baking soda sidoo kale waa skin whitening maasha Allah tabaarakallah. baking soda inaad taqaaniin rajeynaya, waa cuntada lagu darsadaa iyo keegaga iyo maasha Allah. marka waxaan sameynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo liin dhanaanta jabaan ka isticmaalaynaa insha Allah. insha Allah asxaabay, liin dhanaanta ma wada isticmaalayno, jabaa ka isticmaalaynaa. marka jabka see u isticmaalaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan u jaraynaa si slice ah, slice-kaas u jaraysaa. kanna sidoo kaleeto saasa u isticmaalaysaa, waxba ma ku qasaysid liin dhanaanta hadduu ilaahay yiraahdo. marka saasa wajiga ugu xoqaysaa si tartiib ah, liinta ma jiijinaysaa, ayada soo dhaxgalaysa. waa u jeedina u maleynaysay usoo dhahday ee kor ugu soo kacday usoo burtay. saasa wajiga meel walbo madow leh maasha Allah aa ugu taabanaysaa, aa marinaysaa. kan slice-ka ahna waxaa marinaysaa isha hoosteeda iyo meel walbo galayaa, sanka laabkiisa iyo maasha Allah tabaarakallah. saasa ugu xoqaysaa si tartiib oo aqyaarnimo ah. asxaabay saasa ugu xoqaysaa meel kastoo is leedahay madmadow way ka leedahay maasha Allah. waxay ku siinaysaa skin glowing ah oo light ah oo maasha Allah nadiif ah. liin dhanaanta sidoo kaleeto ayadana jeermiskay dishaa, waxyaabaha finanka kugu reebaan madmadowga way baabi'isaa. sokortana waa nafaqo, wajiga way nafaqaysaa, waxayna ka saartaa qolfaha iyo waxyaabaha wasaqda oo ku dhagan skinka. baking soda sidoo kale asna wax walba lagu kiliinayaa. marka saas ugu xoqaysaa maasha Allah, si aqyaarnimo ugu xoqaysaa hadduu ilaahay yiraahdo maasha Allah tabaarakallah. ma asxaabay, waa alaab simple oo gurigaaga ku taalo, faa'iido badanna ku leh xagga cuntada, xagga jirka, xagga isku nafaqeynta. marka asxaabay, hadda videoga ka heshin fadlan like, wixii tali tusaalaha comment. oo walaashii Maryan Run Cooking and Beauty idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. noola kulantee, bye bye.